sheegay oo nin wasiirada galmudug kamid ah sheegay oo maanta ka yimid muqdisho in airportkii lagu celiyay ra'iisul wasaare isbaar loogu dhigtay ninkii ahaa jiray ra'iisul wasaare xasan cali khayr su'aasha simple ka imaanay markii maxaa waay war ciidanka aad dhisaysay haddii adiga isbaar ku dhiganayaan si ciidan u yihiin ciidankii adiga aad 3 sano dhisaysay oo lahayd waa dhisay hadday jidka isbaar ku dhigteen adiga si ciidan ku yihiin ciidankaas sababta ma taqaana shalay markay dadka weerarayaan raali ka ahaa berina farmaajo sugaysa ay wiilka taliska la waxayna fahamsaneen ciidanka in siyaasadda laga dhex bixiyo oo sharciga iyo dastuurkii ammaanka ka shaqeeyo say dawladnimada u caawinaysa ma oga ayaga maalintaas ay joogo qof walba wuxuu rabaa asaga inuu isticmaalo oo dadka loo adeegsado oo kii ka soo horjeedo uu ilaa garaac wiilkan miskiinkaana waxa laga yaabaa risqiisa iyo dalacaadiisa in la yiri waa ku xirantaa meeshaan ku xirantaa oo meeshii gal yiraahdo iska galo laakiin bari xilka adiga ma haynaysid Soomaa tusaale tan noogu filan marka runtii waa soo sheegay saaxiibkay Axmed Macalin Fiqi runtii raaliyan ka nahay hawsha asaga iyo asxaabta kale ay u soo aadeen inay ka qabtaan galmudug sababtoo ah Axmed Macalin Fiqi taliyana basuugida qaranka Soomaaliyeed oo ahaa 2011 iyo 2012 intaba marka maqlaysaan oo shabaab in laga xoreeyay magaalada Muqdisho oo laga saaray Muqdisho laga xoreeyay ninkii taliyana basuugida ayuu ahaa xilligaas waxa la dhigi karaa xooga iyo awoodda ay uga baxeen xamar ninkii ka dambeeyo aadan ula socda aniga marka dawladda kuma jirin inkastoo dawladeedii ahayd waan ka baxay golaha wasiirada laakiin xildhibaan ahaa aad iyo aadan ula socday wax qabadkiisa runtii waxaan aaminsanahay wax qabadkii haduu inta u soo wareejiyo maalmahan oo u jeeda shaqada adag oo hayo in ay galmudug oo ka xoreey karo nimankaas nabadiidka ah oo argagixisada waxaan rajaynayaa marka in kaalin xoog leh oo ay galmudug uga baahan tahay inuu hayo annagana aan ku taageersanahay aan ku ayidsanahay waliba dadka haday hawsha galaan aan ka soo jeesanin waaye ilaa Khartoum ayaan isla joogno biyaha aan isla cabi jirnay niilka waana odayaho adag shabaabka sababta uga baxeen xamar waxay ahayd way wareereen waxay kala garawaayeen cid ayaga ahayn macni soo u dhax galay kaliya oo ugu dhax abuurtay dad maaragtay uga soo warrama dhexdooda magaalada insixaab wax la yiraahdo ka sameeyeen markay kala garawaayeen cid ayaga ka tirsan cid ayaga ka tirsaneen galmudug asad weyn ayaa haysataan ina ku mitidaan rajaynaya madaxweynaha galmudugna saas oo u fahmo in maaragtay oo nin kartidaas leh oo yahay intaas markaan ka gudbo runtii galmudug sida la sheegay way soo nuurtay way soo kacday markii la qabtay shirarkii isdaba yaalay galmudug 1 iyo 2 markii dawladda cusub ee madaxweyne qorqor ay deegaanada dhan galmudug ay safar ku martay dadka baahiyadooda iyo dareenkooda iyo waxay qabaan ay soo dhageysatay dib u heshiisiin galmudug gudaheeda ah ay sameysay ilaa iyo madaxweynihii xilka ugu horeeyay asaga oo runtii aan arkayo markaas in la dulmiyay oo ka garaabay oo maaragtay soo dhaweeyay oo la xaalay waxaan rajaynaynaa dib u heshiisiintaas ayada ah galmudug ka dhacday miro u noqotay in galmudug shirkii dhuusamareeb 1 iyo dhuusamareeb 2 iyo dhuusamareeb 3 inta lagu qabtay galmudugna ay qaadatay xilkii dawladda federaalka runtii dadka Soomaaliyeed in la isku keeno oo ka wada hadlaan oo ay ka heshiiyaan hanaanka doorashada dalka oo noqonayo oo ay ka heshiiyaan mustaqbalka siyaasadda Soomaaliya shaqadaas waxa iska leh madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iska leh shaqadii dawladda federaalka ah laakiin hogaanka iyo waxa qabtay shacabka reer galmudug ayaa shaqadaas Soomaaliya qabtay marka waxaan leeyahay saaxiibkay Axmed iyo inta dawladda ka joogtaba maadaama booskii madaxweyne wax badan ku dheelay ah gasheen wixii dadka ay ku qabsadaan macnaheedu galmudug idinka liinma joogde ninka shaqadiisii qabateena loo jeedaa taas in la socotaan ayda nafteeda xisaabta ku darsada macnaheedu haddaan ka gudbo oo u gudbo topiga maanta noo yaala in muddo ay u dambeysay saaxiibkay oday Axmed Salaad Kulmi inaan arko soo sheego waaye xisbiyada waxa laga rabaa inay afkaartooda la yimaadaan
oo ay marada bitin kaliya ay aragti siyaasadeed ay soo bandhigtaan oo aragtida siyaasadeed lagu taageero kii markaas deegaan iyo si kale u taageerayeen asoo aragti haysta oo taageero kii kale oon ku deegaan ahayn ama aan ku aragti taageero deegaansiinaynina oo aragtidaas ku taageero aragtida la dhageysto yaan u baahanahay Soomaaliya 20 iyo dhowr sano waxay ku jirtaa runtii dawladnimadii laga soo bilaabo carta waa 20 jir Soomaaliya 20 sano jirsatay ilaa haddana salka waa la dhigi laayahay oo dawladii waa istaagi laadahay sababtana waxay tahay waxyaalaha ugu muhiimsan oo dawladnimo ay ku dhisan tahay iyaan dhaqaaji laanahay oo xaggeeda u dhaqaaqi laanahay ilaa marka aan taas u dhaqaaqaynana halka uun baan taagnaanaynaa ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku yiri walan tajida li sunnati llahi tabdilan walan tajida li sunnati llahi tahwilan sunna kawniya leeyahay sunnada hadaa qaado dariiqa oo dawladnimada hadaa qaadana dawladda noqonaysa hadaad qaadi weysana inaad salaad badan tahay oo soom badan tahay oo cibaado badan tahay ilaahay ku xiran tahay xataa waxba ku tari mayso dariiqa ina qaado dawladnimada yaa laga rabaa ilaahayna subhanahu wa ta'ala saasoo quraankiisa ku cadeeyay waxaas marka waxa la yiraahdaa sunna kawniya waa ina dariiqa dawladnimada hadaan Soomaalina inaan qaadno way dariiqa waan ka lumsanahay mar lugta la soo fuulnaa ayaan marka la saarana anagoo gaabisa qolo cusubaa timaado waa naga ridaa jidkii aan haynay jik naga siiyaan markaas inta soo wareegna haddana waxa soo bilownaa inaan jidkii soo qabsano sababtoo waxay isleeyihiin dawladnimada asaan maxaa marka dawladnimada ay tahay asaaskeediina uu ka yimid asaaskeeda dawladnimada waa heshiis bulsho waay heshiis bulsho waxa rabaa cawada si sahlan in uu fasiro hadda inteena hoolka ku jirta oo rag iyo dumar oo meesha fadhina oo qof walba qoray haysto oo yiraahdo ana taliya oo niraahna bal see ku wada noolaa karnaa oo go'aan ku gaarno in qof walba qorigiisa oo dhaxda dhigo dhaxda inta soo dhigo oo yiraahdo qorigaygu waa kan because qoriga waxa ugu miisaalinayaa ugu matalayaa madax banaani waay qoriga qof kasta markuu qorigiisa haysto waa madax banaan yahay ayiisana asaa ka tashada Soomaa asaa ayiisa ka taliya qofkaas ka soo horjeedo qoriga haystaana macni ayiisa uguma marti uguma aha marka waa individual sovereignty qof walba kaligiisa madax banaanida marka in la iska qaada la rabaa oo dhaxda la soo dhigo saddexda loo soo dhigo dawladnimada originkeedii meesha ka timid waxa dhaxda loo soo dhigo waxa la yiri inteenan aan madax banaanida ka tanaasulno qof walbana qorigiisa dhaxda ha dhigo saan ku soconaynaa leeyahay marka waxaan la baxaynaa qof aan ku aamino madax banaanideena shakhsiga ah qoriyaheena iyo hubkeena u dhiibano qofkaas wuxuu ka soo bilaabatay boqor in la yiraahdo nin boqor la yiraahdo ay ka soo bilaabatay boqorka waxa loo dhiibaa leeyahay awoodna asaga waxa loo siiyay inuu inta kale ilaaliyo iyo ka ilaalinaya ayaga inay isdhibaan inuu ka ilaaliyo in dibadda dib uga yimaadana inuu ka ilaaliyo intaas lagu la ballamay saysaas u ahaad boqorkii takrifar oo bilaabay soo awoodda asaga gacanta la isku magil soo lama aaminin soo wixii loo ma dhiibanin wuxuu bilaabay inuu takrifaro oo yiraahdo ana inay taliya sidii aan rabaan in ka yeelaya marka maxay ahayd malakiyada mutlaqa boqortooyo iska furan oo boqorka awood kasta leeyahay dadkiisa u joogo waxa war ninkaas anaga wax uma dhiiban ha soo madax banaanideena shakhsiga ay gacanta uma gelin ha soo anaga qoryaheena hubkeena uma dhiiban ha haday waran haysteen ama haday toore haysteen waxay haysteen oo hub marka aha ninkaana iska celino xuquuqdeena ka soo dhacsan dagaal halkaas uu ka bilowday horta markuu bilowday oo la isla dagaalay boqorkii wuxuu ogolaaday baashi inuu dhaxda dhigo awoodiisa in la mid gareeyo si awoodda boqorka loo xadido marka waxa la yiri golaha la sameeyo waa meesha baarlamaanka imaado in baarlamaan la sameeyo sharci la dejiyo si awoodda boqorka loo xadido oo la yiraahdo boqor intaas aan ugu leedahay intaasna shacabka iskale shacabkana waxa matalaya dad ayaga soo xusheen sharcigaasna waa midka ku shaqeynaysa oo gacanta loo geliyo boqortooyadii marka maxaa lagu sameeyay waa soo gaabinaya taariikh dheer waaye boqortooyadii waa la xadiday awoodeediina meel lagu koobay dalka Ingiriiska ugu horeeyay marka adduunka dhan gumeystaa la socotiin ilaa maanta aan hadlayno ka warrama dalka Ingiriiska dastuur qoran ma laha soo jireenkaas xeerka ah ilaa yoomin hada lagu dhaqmaa boqorada inay magacaawdo qofka xisbiga majority-ga ah ama codka ugu badan helay inay ra'iisul u magacaawdo meel ay ku qoranto dastuur Ingiriis ma jiro waa wax la isku ogaay waay saasa la isku bartay wixii aan dhigi jirnay odayaasha Soomaaliya xirbeegtida ah
xeer soo jireenaha dastuur ah wax qoran oo leeyahay article 2 dastuurka ingiriiska article 2 ma jiro ogaashaha sanadaha soo jiray ay ku dhisan tahay dawladda ingiriiska aad aragteen dastuurkeeda uu ku dhisan yahay awoodii marka boqorkii waa laga soo ceshtay maxaa lagu koobay maraasiimta in la ixtiraamo madaxa dawladda asaga inuu yahay in gacanta laga dhunkado in la qadariyo in oo ay u tahay matalaada qaranka isku hayso laakiin awoodda xukuumad iyo baarlamaan yaa la siiyay waxa marka madax banaanida dawladaha haysta waxa waaye baarlamaanka ah awoodda madaxa banaan the sovereign waxa ah baarlamaanka ah sharcigana asaa dawladda u dajiyay iyo nidaamka asagayna ka bilaabata asagayna ku dhamaata mareykanka waa nooc ka duwan laakiin waa awood la soo xadiday mar dhexe waxa soo galay marka wadaadadii kaniisadaha joogay waxay dhaheen annaga nafteena ilaahan ka soconaa xaqiisa waa in xukunka iyo talada annaga lagu soo wareejiyaa loolan kala dhex maray boqortooyadii iyo kaniisadiina waa isdagaaleen kaniisadii dhexdoodina waa isdagaaleen sidii loo socday nidaamkan aragteen oo dimuqraadiga ah oo hadda adduunka ka taliya oo shacabka awoodda loo celiyay shacabkana baarlamaanka uu matalo saasaa lagu wada joogaa annaga markaa xorriyadda qaadanay kaasaan soo koobi garaynay asagaan keensanay soo saas ma ah dastuurkii ugu horreeyay oon yeelanay maadaama nimankii dowladnimada keenay ajnabigaas ay ahaayeen xilli ayaga ay soo bislaadeen oo waxaan ay ka soo gudbeen oo dagaalkii boqortooyada iyo dagaalkii diimaha 30 sano socday iyo dagaalkii kalitalisnimada iyo dagaalkii iqdaaciga iyo say u soo wadeen halkaan ku soo dhamaadeen oo ah xukunka shacabka in loo celiyo sidoo hadda Axmed sheegay shacabka uu ka yimaado shacabkana awoodda ay leeyihiin shacabka haday keenaan wali dimuqraadiyada waxa la yiraahdaa waa nidaamka ugu fiican waxa ugu xun ay ugu roontahay ee kii ugu fiicnay maaha sababtoo ah dimuqraadiyada waxay keeni kartaa Donald Trump oo kale لا ما هل كذا ومدحين اللي دورتي أفرت سنة اللي دورتي أمريكان كان وين احترامان وهو رؤوسك هلا نك على تنوع وصبح تسوي استعداد وضعها بيها أنا ما ضح أكون أخذه يقول ما فينا شرح على قصة صار يقول يعني أساس صارت نيكي كورينا نمدو أبيس مسلم هاي أوكي كل شيء أبيس مدحينك صارت سلا يدي اللي هو نظام كاس هجرة مركز dadku marka waxay soo aamineen systemka iyo dawladnimada Soomaaliya u soo noqonaya marka Soomaaliya maxaan hortaagan dadkii Soomaaliyeed markay isdileen oo civil war nagu dheeraaday oo dagaalkii ahliga nagu dheeraaday dadkii waxay dhaheen dawladnimo rabnaa dawladnimo u baahanahay dawladnimadii markay yaa ku cayaaraya dadkii talada loo dhiibay yaa dawladnimadii ku dheelaya dadkii aaminaadii ay soo aamineen hubka inay dhiibaan oo maanta wasiir Axmed Macalin Fiqi iyo qorqor madaxweynaha galmudug waxaan ka soo qaadana halkaane dadku waxay diyaar u yihiin Soomaaliya hubkooda inay u dhiibaan oo ay ku wareejiyaan oo ay dhahaan xukuma oo idinka noo taliya dawladda Soomaaliya saasay ku timid niman oo loo raajir waa ogeedeen maxkamadda islaamiga yimid way sii xaqeen ayaga wala sii xaqay adduunkiya sii xaqay wala socotiin say u socoto markii dambe waxa la yiri bal dastuurna hal la dhigo hubkana dawladda lagu wareejiyo ciidan dawladda Soomaaliyeed hal la dhiso asagana hal ixtiraamo oo dastuurkana hal ixtiraamo marka hadii markii heshiiskii bulsho ee dastuurka aan la ixtiraamin oo asaga aan tixgelin hadeen qof ka tabaroon iyo qof ka awood badan ma la meeshii aan ka nimid oo ogeedeen yaa loo noqonaya tusaale soo sheegay Axmed Al-Fiqi anaga markii la soo weeraray ciidankana soo weeraray agteena habeenkii inay jiid ka xirnaayeen oo magaalada xirxirayeen oo dhabaha jid kasto soo gal xaafadeen ay xiraayeen waa ogey waana u jeednay waana loo sheegay laakiin nuguma soo dhicin ciidan dawlad leeyahay ya inta qoryo soo qaatay guri qof muwaadin degan yahay la ku dhaca dhashiikiyal ku garaacay doomisharay hub ciidanka nabadsuugida inta badan xamar howlgalay ka sameeyaan howlgalladaasna waxay ku wajahan yihiin nimanka nabadiidka xaafadda ay xiraan inta soo jeer anaga xaafaddan intay xireen ay dad ka bixiyeen lagu tuunsan yahay nimankaas inay yihiin annaga marka waxaan islaahayn ciidankan waxay u socdaan waxay dad ku raad joogan qof qoladaas ka tirsan kama shakin laakiin hadda maxaa dhacay marka hadda waa ka shakinayna hadda agteena soo maraan Sheekh Shariif waa aragtay Soomaa wadaadii hore Sheekh Shariif markii dhowr jeer gurigiis ag mareen difaaciisu ka xirtay ciidanka hadda lagu ma kalsoona yaa keenay in ciidanka la aamino ما أنا قاعد كأني مثل دولة كنت
ciidanka marka haddaan loo sheegin shaqadaada waxay tahay amniga shaqadaada waxay tahay dowladnimada inaad dhowrto shaqadaada waxay tahay dastuurka inaad ilaaliso oo hub loo dhiibo mooryaanta wuxuu ka bedelan yahay malaha haddii qofkii rabo loo isticmaali karo maantada waxaa la ii sheegay oo nin wasiirada galmudug ka mid ii sheegay oo maanta ka yimid muqdisho in airportkii lagu celiyay ra'iisul wasaarihi isbaaro loogu dhigtay ninkii ahaa jiray ra'iisul wasaaraha xasan cali khayr su'aasha simbalka imaanaya marka maxaa waaye war ciidanka aad dhisaysay haddii adiga isbaaro kuu dhiganayaan say ciidan u yihiin ciidankii adiga aad 3 sano dhisaysay oo lahayd waa dhisay hadday jidka isbaaro kuu dhigteen adiga say ciidan ku yihiin ciidankaas sababta ma taqaanaa shalay markay dadka weerarayaan raalli ka ahaa berrina farmaajo sugaysaa iyo wiilka taliska la waxayna fahamsaneen ciidanka in siyaasadda laga dhex bixiyo oo sharciga iyo dastuurkii ammaanka ka shaqeeyo say dowladnimada u caawinaysa ma oga ayaga maalintaas ay joogo qof walba wuxuu rabaa asaga inuu isticmaalo oo dad kale u adeegsado oo kii ka soo horjeedo uu yiraahdo garaac wiilkan miskiinkaana waxaa laga yaabaa risiqiisa iyo dalacaadiisa in la yidhi waa ku xirantahay meeshaana ku xirantahay oo meeshii gal la yidhaho iska galo laakiin beri xilka adiga ma haynaysid soo maa tusaale tana noogu filan marka dowladnimada aan rabno waxaa waaye soomaalina ay u baahan tahay dowlad ciidankeeda sharciga iyo dastuurka oo ilaalinaya iyo ammaanka dowladnimada uu jiraayo yow jiraaya dhexdeedana waa shacabka dhexdiisana wuu kala ilaalinaya waa meeshaan ka soo bilownay ogaada shacabka dhexdiisana muxuu sameynaa wuu kala ilaalinaya haddii cadow bannaanka u yimaadani wuu kala ilaalinaya nasiib daro marka waxay tahay annaga yaana kala ilaalay hadda marka annaga maaska bis ami Soomaaliya kala ilaalisa fi waayaan daro annagoo 60 sano qaran ah in saaki oo nagu dhex jiraan ciidan 20 dhowr kun oo ajnabi ah oo waxa ay kala ilaalinayna Soomaali ay tahay ninka aan ogeyn ka waran orada la socon oo dalkiina hoggaankiisa ama madaxtinimadiisa haysta lama sociyaba waxana kala ilaalinaya waa askar ajnabiga intaan dhihi lahayn waa maasantiin walaalayaalow waa noo soo gurmateen waana kala ilaaliseen iridan ka dareere naga tag intaan dhihi lahayn waxaan dab ku sii shubaynaa in ayaga u sii baahano oo sababtii ayaga inay noogu imaadaan keentay yaan sii xoojinayna meeshii la rabay inaan xoojino sababta ayaga ay ku bixi lahaayeen marka waxaan u baahanahay koow dawlad heshiis bulsho ku dhisan heshiiska bulshana waa kaan sheegay dadku waa inay raalli ka wada yihiin waxa lagu xukumaayo ayna dareensan yihiin heshiiskaas in la ilaalinayo oo la ixtiraamayo sharcina sidiisa iyo dastuur wuxuu macno ku leeyahay qofka awoodda haysta marka uu ixtiraamo si kale macno kuma leh sharciga inuu muwaadinka oo sacboolayda ama sitiisanka jidka mara inuu ixtiraamo maaha kan awoodda haysta markuu sharciga asaga ixtiraamo markuu sharciga asaga qaba karo markaasuu sharciga macno leeyahay haddousan asaga qaba karin ama si ixtiraami karin asaga sharcigaas iska tuur wax macnaa ma laha meesha lagu qiyaasa waa meesha dawladdu waxaan u baahanahay marka dastuurka oo taliyo oo heshiiska bulshada dastuurkuna maxaa nin waa heshiis bulsho dawladdu waxaan u baahanahay ciidankeeda oo ilaalinayo madax bannaanida qaranka iyo ammaanka iyo nabadgelyada shacabkana oo ilaalinayo aan dawladda u baahanahay taas waaye oo maxaa waaye awoodda dawlad xoog badan oo awood leh ma rabnaa qof kastoo Soomaaliya wuxuu ku leeyahay dawlad awood leh oo xoog badan oo waxaan rabnaa ay ku leeyihiin oo qarannimadii iyo heebadii soo celisa dawladdaas ma taqaaniin waa mid sharciga uu sareeyo waay dadkuna ay u sameeyeen sharciga equality before the law iyo rule of law sharcigana waxa sareeyo inuu yahay laakiin dawlad qofka uu sareeyo Soomaalida Ilaahay wuxuu ku ibtileeyay asaga wuxuu rabaa inuu yiraahdo ana ad-dawla ana dawladdu uu ku leeyahay aniga sidaan rabo yaan dawladnimada u fasiraya aniga sidaan rabay dawladnimada noqonaysa inta yarka maxaa marka annagana haysta dawladeeni iyo mu'assasaadkeeni dawliga ayaa iska tacbaan ah waa weak qofka marka fragility wax la yiraahdo adduunka dawladaha noocan oo Soomaaliya kale taa waxa lagu sheegaa fragile state la yiraahdo dawlad nugul maxay u nugushahay marka fragile maxaa waay maxay u nugushahay inay kala burburtay u nugushahay wax kastoo ku dhaca jik hadii la siiyo inay kala yaacday u nugushahay marka waxa la yiraahdaa dawladaha nugul la yiraahdaa burburay u nugul yihiin marka waa la ilaaliyaa aad loo ilaaliyaa dawladaha noocaas
wax kasta oo burbur ku keeni kara laga ilaaliyaa marka waxa la yiraahdaa fragile state characterka ama sifada ay leedahay waxa waaye in hal qof oo dalka meesha ku yimid ku celi karo si sahlan ugu celi karo sababta ugu celi karo waxa waaye institution ama hay'ado dawladeed oo dhisan oo xoog leh oo iska celi karo malaha hadda Donald Trump sababta soo qaadano institution iska celinaya maalooda markuu yiri doorashada dib u dhigaa yiri moogta doorashada oo hadda November soo socota iyo wuxuu yiri dib u dhigaa ninkii ugu horeeyay ee ka hor yimid wuxuu ahaa xisbiga jamhuuriga asaga ka tirsan yahay ninka majority sanadku ah koow qofkii hadlay ee ninka aqalka kale ee Congress-ka jooga wax dhici kara ma ha ku riyoonay dhaheen madaxweyne in doorashada dib loo dhigo ha ku riyoon ciidanka Mareykanka wuxuu diyaar u yahay hadduu diido inuu doorasho qabto ama hadduu diido in hadii laga raayo oo yiraahdo laga ma raaynin inay dhahan madaxweyne raali lahaw ee aqalka cad ka soo bixiyaan diyaar u yihiin macni qof marka la aaminsan yahay oo la ixtiraamo oo laga dambeeyo oo asaga la leeyahay qofkaas wallahi waa qof saasa ma jiro marka nugulaashaha waxa in la ilaaliyo u baahan yahay cid ugu baahida badan ee ugu waajibka badan inay ilaaliso nugeylka dawladeedna waxa waaye waa dadka ayaga madaxda ah hadday ku dheelaan inta kale inay fiirsato maaha Soomaalida markii waxa laga dhaadhiciyay mu'aaradnimada ama tilmaamta waxa dhaliisha leh inay wax xunta laga dhaadhiciyay sax maaha hadii anaga hadda aan baabuur saaranahay buurahan maaragtay dhaadheer oo maaragtay wadamadaas ku yaalo oo baabuurta markay marayso hadii darawalka wax yar oo libiqsado laga yaabo gaari inuu dhaco ama hadii kale doon badda saaran hadaad naaquudaha adiga la joogtid oo u jeedid naaquudaha inuu ku dhici rabo jabal ama buur ku dhici rabo oo ka aamusta ka waran oo shibka tiraado soo adiga iyo doonti iyo wax saaranba ma qarqanaysaan waa midda nabiga uu ku miisaalay kaleey salaatu wasalaam inaan nahay dad saaran doon laba dabaqa oo kuwa hoose ee markasta leeyihiin kuwa sare nasiya biyo nasiya oo intay dhibsadeen war biyana weydiinaysi marabne ordaha idinka biyina raadsada ay ku dhahan maxaan ka rabnaa doonta aan duleeshano saan biyaha hoos wala soo baxno fiiri waa markuu nabiga ka sheekeynaa munkarka iyo xumaanta in la iska reebo hadii marka naaquudaha doonta wadaaho oo ka aamusto adoo u jeedo inay doontii jabal ku dhacayso oo ka aamusto shib ka dhahdo hadda adna waa ishalaagtay dadkaagiina waa halaagtay naaquudahana waa halaagtay doontana waa halaagtay annaga marka dhibkan haysta muxuu yahay Soomaaliya daana annaga siyaasadda noo xasilnay qisay yarayni sheega nin saaxiibkay isla soconay Malaysia marka wax ka baranay marka ninaan naga hor yimid isu galaasiin jaamacad kale ani ka imid asaan soo booqday jaamacadiisa aan u imid waa sheekaysan qolkiisa tagnay shaaw isiiyay waa soo baxnay markaan soo baxno nin waxa ka hor yimid Malay ah oo dadka Maleeshiyaanka markaas uu war hebel boqorka xaaladiisii ka waran markaas uu maxaa ku dhacay markaas uu ma ka warqabtid miya markaas uu may ka warqabo war boqolkii intensive care ku jira oo xaalad wuxuu ku jira aad u culus markaas boqorkii dalka jiraday meesha waxa la geliyay gargaarka degdega ku jira xaaladiisa waa culus wasiirka caafimaadka saacad kasta wuxuu ka bixinayaa warbixin boqorka xaaladiisa ninka marka Maleeshiyaanka aanu master oo dhigtaa jaamacadda master oo sameeya lama socdo waxaas oo wuxuu yiri ninkii saaxiibka oo lama socodin yahay boqorka inuu xaaladiisa halista lama socdo oo si uu la soconayo oo maxaan ula soconahay ninkii aniga doodan dhaxmartay marka waxa yiri xasanow ninka anaga kala maaha anaga garan leeno siyaasadii anaga qariban xasilooni dara siyaasadda jirto kulliga waxaan siyaasiyiin u nahay siyaasadda anaga qariban laakiin wiilkan siyaasadda waa u toosan tahay dadana u haaya wuxuu ku mashquulsan yahay marka wuxuu ku mashquulsan yahay bangiga gaari deyno ka qaatay iyo guri deyno ka qaatay inuu iska bixiyo markuu masterka dhameeyo shaqada helo gaariga iska bixiyo guriga deyntiisa iska bixiyo guursado saas mustaqbalku rakibta oo ninkaas ku mashquulsan boqor inuu nool yahay inuu jirado inuu dhintay shaqadiisa ma sababta ma taqaana siyaasadda u fadhisa siyaasadda waxa xasilan laakiin qofkan siyaasadda waxa xasilan anagoo kale taa waxay la mid yihiin doon badda dhex maraysa haday duufaan ku timaado ma qof aan dhihi kara naaquudaha kaliya loo kaadiyo
doonta hadday gabgabgab tira ay gilgilato qof dhihi kara ma jiro markabka ama doonta naaquudaha xasilinaya lagu kaadi soo qof walba isku madayayso inay dhahdo inta ka qabo inta ka saar inta ka bixi qof walba waa istaagaya soo ma annaga de xasilooni laakiin doonta markay duufaanta bacdo haday badda qabsato qof walba wuxuu ku noqonaa fadhigiisi naaquudahana loo dhaafaya hadda waxaan naaquudaha la isku dhaafin ma taqaana xasilooni darida waay erayga xasilooni darada lagu celcelinayani waa inaan isla fahanaa waa siyaasadda oon xasilnayn siyaasadda hadday naga xasisho qof walba shaqadiisa kale iyo danihiisa kale iyo umuurihiisa kale oo raacanaha ku filan uma baahna qodobka saddexaad marka maxaa u baahanahay siyaasad xasilan dowladnimada u baahanahay maxaa asaas u ah heshiis bulsho ciidan ammaanka gudaha iyo madax bannaanida dibadda ilaaliya iyo siyaasad xasilan